kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii shabakada wadaagsan oo aan hadahan oo kale idiin soo tabin jirnay waa 25ka bisha July 2019 qodobada ugu doorka roon ee warkeenana waxaa kamid ah dhaawaca gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dibadda loo qaadayo iyo diyaarad soo gaartay magaalada Muqdisho madaxweynaha Hirshabelle Waare oo damacsan isbedel siyaasadeed oo xasaasi ah magacyada mas'uuliyiinta ku dhintay qaraxa xurunta gobolka Banaadir iyo dhaawacooda oo aan idin la wadaagi doono gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa shaaciyay sir ku aadan qaraxa xurunta gobolka Banaadir maamulka Somaliland oo qaadaya tallaabo ay cadaadis xooggan ku saarayso Korneyl Caare daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay waxaa xasuusiniga ah inaad subscribe saartid channelka si ay kuu soo gaaraan wax walba oo aan soo gelino haatana warkii ofisan waxaa weli la tacaalaya xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir injineer Camar Cabdiraxmaan Yariisow oo ku jira isbitaalka Digfeer ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sida ay xaqiijiyeen ila caafimaad oo ku dhow isbitaalka gudoomiyaha ayaa xalay maray laba qaliin iyadoo weli laga dayrinayo xaaladiisa caafimaad wararka qaar ayaa sheegay in gudoomiyaha saaka loo qaadayo dalka dibadiisa si loogu soo daaweeyo halkaasi diyaarad laga leeyahay dalka Qatar oo nooca ambalaasta ayaa goordhow soo gaadhay magaalada Muqdisho taas oo u qaadi doonta tiro kamid ah dhaawacyada culus sidoo kalena waxaa la filayaa in saacadaha soo socda garoonka aadan cadda ay soo dhigato diyaarad ka socota Turkiga oo iyana qaadi doonta dhaawacyo kale oo ku jiro gudoomiye Yariisow sida ay wadaagsan u xaqiijiyeen xubno ka tirsan xafiiskiisa dhinaca kalena guddiga gurmadka ee xalay magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ayaa wada dadaalo loogu gurmanayo mas'uuliyiinta iyo dadka ku waxyeeloobay qaraxii xooganaa ee shalay ka dhacay xurunta dawladda hoose weli waxaa socda baaritaan dheeraad ah oo ay ku aadan sidii uu dhacay weerarkaasi oo ay fulisay haweeney isku soo xirtay walxaha qarxa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Awaare ayaa damacsan inuu isbedel ku sameeyo qaar kamid ah golihiisa wasiirada toddobaadida soo aadan sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan Hirshabelle Maxamed Cabdi Awaare ayaa la sheegay inuu isbedel ku sameynayo wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dawlayaasha kuwaas oo aan ahayn xildhibaano waxaase la filayaa in isbedelkan uusan sameyn doonin wasiirada sidoo kale xildhibaanada ah qof ka tirsan xafiiska madaxtooyada Hirshabelle ayaa wadaagsan u sheegay in madaxweyne Cabdi Awaare uu go'aansaday inuu xilka ka qaado wasiiro dhowr ah isla markaana lagu bedelo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle arrintan ayaa lagu sheegay inay sababtay culays siyaasadeed oo soo faaray madaxweyne Hirshabelle Maxamed Cabdi Awaare oo hadda khilaaf kala dhaxeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Barre madaxweyne Waare ayaa markii la doortay waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa kamid ah inuu soo dhisi doono gole wasiiro oo ka kooban oo aan kamid ahayn xubnaha baarlamaanka Hirshabelle balse ma dhicin wasiirada ugu badan ee maamulka Hirshabelle hadda waxay sidoo kale ka tirsan xubnaha golaha wakiilada Hirshabelle waxayna noqdeen difaaca ugu adag ee madaxweyne Waare iyadoo haddana la filayo in wasiirada dhan laga dhigo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi faafahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax ismiidaamin oo ka dhacay gudaha xurunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay dhimashada gudoomiyaashii degmada Cabdicasiis Sabaah Cabdullaahi Asad gudoomiyaha degmada Waabari Mahad Cilmi gudoomiyaha degmada Shangaane Sahra Markaysi agaasimaha nadaafadda gobolka Cabdifataax Cumar Xalane agaasimaha shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir Cabdullaahi Dheere la taliyaha duqa Muqdisho oo Xasan Maxamed Sabriye agaasimaha qorsheynta deegaanka dawladda hoose injineer Shuuriye dhimashada ayaa waxaa sidoo kale ku jira shaqaale hoose iyo ilaalo kamid ah gobolka sidoo kalena waxaa jira mas'uuliyiin badan oo ku dhaawacmay qaraxaas ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Yariisow oo ay xaaladiisu aad halis u tahay gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Sayna Maxamuud Warsame gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir agaasimaha xiriirka degmooyinka Dhagaxada iyo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda Kaxda ayaa iyagana dhaawaca sidoo kale waxaa dhaawacay dhimasho soo gaaray shaqaale ka tirsan aqalka dawladda hoose askar iyo dad shacab ah oo shaqo doontay xurunta walow aan tiro koobka rasmiga ah dadkaasi wax noqday weli la soo saarin gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Banaadir Toolax ayaa sheegay inuu jiro khasaare xooggan oo sababay qaraxu haatan ay ku hawlan yihiin si loo badbaadin lahaa dhibanayaasha weli waxaan ku jirnaa xaaladda soo korortay ee Muqdisho ee gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa shaaciyay sir culus oo ku aadan weerarkii xooganaa ee shalay ka dhacay xurunta dawladda hoose ee Xamar
tuulax ayaa sheegay in weerarkaasi ay hagayeen dad ku sugan gudaha dhismaha ee xarunta maamulka sidoo kalena wuxuu tilmaamay in ay baarayaan cidda la shaqeynaysay haweeneyda isqarxisay oo la rumaysan yahay inay ka tirsan tahay shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir gudoomiye Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa intaas ku daray in dib loo baarayo dhaqdhaqaaqa ay duubeen kaamirooyin ku xiran xarunta gobolka Banaadir qaraxan oo ay sheegatay al-shabaab isla markaana ay ku dhinteen gudoomiyaal iyo agaasimayaal heer gobol ah ayaa waxaa la isweydiinayaa sida uu ku soo galay amniga xarunta ayaa si weyn loo ilaalin jiray iyadoo ay ka howlgalayeen ciidamo si gaar ah u tababaran dowladda Soomaaliya ayaa guddi gaar ah u xil saartay dhacdadan kuwaas oo sidoo kale ka shaqeyn doona si loogu gurman lahaa dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi Somaliland oo qaaday tallaabo ay cadaadis xooggan ku saarayso Korneyl Caare xukuumadda Biixi ayaa saaka ciidamo badan waxay geysay deegaano ka tirsan degmada Ceergaabo ee gobolka Sanaag oo u dhow Buuraleyda ay saldhigga ka sameysteen ciidamada Korneyl Caare ciidamadan ayaa saaka la geeyay deegaanadaasi waxa hogaaminayay taliyaha ciidamada RRU-da Somaliland kuwaas oo laga soo kala qaaday deegaanada Tukaraq iyo galbeedka Hargeysa wararka aan helno ayaa waxay sheegayaan in Somaliland ay ciidamadan culays ku saarayso in Korneyl Caare uu ogolaado inuu isku soo dhiibo kadib markii ay wax natiijo ah keeni weysay waan iyo wada hadal ay labada dhinac ka dhaxwadeen guddi iskugu jiray odayaal iyo waxgaradka gobolka Sanaag ilaa ay haddana ma jirto war rasmi oo ka soo baxay xukuumadda Muuse Biixi oo ku aadan ciidamada badan ee saaka ay geysay deegaanada Ceergaabo daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena inta aan warkan warka xiisa badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas nabadgelyo